kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan waxaan leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha faaqadaada ciyaaraha ee maanta waxaanu markaa 1 ka dhigi doonaa ciyaaraha maanta la ciyaarayo ee Premier League iyo La Liga sidoo kale waxaa markaasi aanu kusoo qaadan doonaa kooxda Real Madrid iyo waliba xaaladeeda iyo macalinka Xavi Alonso xalka iyo Real Madrid oo u dhaxeeya bal sida ay tahay xaaladooda iyo waliba qaabka ay markaasi kooxda Real Madrid ay u ciyaareyso mooyahan dambe sidoo kale waxaan kusoo qaadan doonaa kulanka ugu horeeya maanta Premier League lagu furayo ee kooxda Newcastle iyo waliba kooxda Chelsea oo ay wada ciyaarayaan haddaba maxaa laga yeeray kulankaasi iyo waliba natiijada laga filan karo kooxda Chelsea iyo Newcastle haddaba inta badan waxa la isleeyahay Chelsea ma ka badin kartaa kooxda Newcastle oo gurigeeda joogto laakiin saadaalinta inta badan 90% waxa ay tahay in Newcastle ay kulankaasi ay awood u leedahay inay badiso waa sida ay markaasi sheegayaan dadka khubarada ah ee ciyaaraha faaqido sidoo kale Chelsea ayaa maanta waxa la filayaa ama in laga badiyo ama markaasi ay soo qaadato draw oo barbar dhac ee ka soo qaadato garoonka kooxda Newcastle sidoo kale suurtagal ma noqon kartaa kooxda Liverpool inay Tottenham ka badiso maanta kulankaasi wuxuu yahay waa kulan derbi ah oo aad iyo aad u adag oo Liverpool iyo kooxda Tottenham ay markaasi wada dheelayaan waana laba koox oo aad iyo aad u xifaaltanta Premier League kana mid ah Big Six-yada ah kooxaha markaasi 6 kooxood ee ugu weyn ay ka mid yihiin labadaasi kooxood Liverpool iyo waliba kooxda Tottenham Hotspur West Ham United iyo waliba sidoo kale Manchester City oo markaasi ku martigelinaysa Etihad Stadium ayaa wada ciyaari doona kulankaasi inta badan waxa la isleeyahay natiijooyinka ka soo bixi kara maxay noqon kartaa laakiin se West Ham sida la ogsoon yahayba xalkeeda alu sahal ayuu yahay maalmahan ugu dambeeya ma ahayn koox markaasi awood u yeelata in ciyaaraha qaarkood ay badiso ama ay tiimamka waaweyn ay gambar u dhigato haddaba maxaa laga yeeray kulanka Arsenal iyo Everton koox aan inaba caadi ahayn waayo kulamadii ugu dambeeyay ee kooxda Arsenal ee la ciyaarta kooxdan Everton waxay yihiin kulamo markaasi ay Everton ay taako dhigto Arsenal haddaba Arsenal oo away ah guriga markaasi Everton ma awoodi kartaa inay markaasi ku soo badiso suurtagal maahan inta badan waxa la leeyahay Arsenal caawa taaka ayaa loo dhigi karaa hadii taaka loo dhigo caawa horyaalka waxa markaasi hogaaminaya ama leelinaya kooxda Manchester United kooxda Manchester City ee soo reeralahaada kooxda Manchester City ayaa markaasi hogaamin doonta waa hadii Arsenal ay caawa ku hangooto haddaba tusaale sababtoo ah Arsenal waxay leedahay 2 dhibcood ay ka sareysaa kooxda Manchester City na hadii ay soo badiso maanta xaqiiqo ama guarantee in West Ham ay garaacayso sababtoo ah West Ham waxay ku jirtaa formka ay ku jirtaa ayaa ah form aad u liita sidoo kale kooxda maxallaha Everton ayadana sidoo kale formkeeda waa form iska normal ah waayahan dambe ay ciyaareysay kulamay badinaysaa kulamana waxa waaye draw way galeysay kulamana waa laga badinay laakiin waxa badan inta badan ay markaasi ayadu drowga iyo badiska ay sameeysay badiska in laga badiyo ayadana aad bay u yareed sanadkan xagaagan ciyaaraya 2025 horyaalka ee markaasi socda haddaba Arsenal waxa markaasi haysato mucjiso aad u weyn oo ciyaartooyda difaaca oo dhammaan ayaa ka wada dhaawacmay oo xaaladeedu aad u adag tahay inkastoo Arteta oo dadaal dheer uu galay oo William Saliba Gabriel Magalhaes ciyaartoydii bedeli lahayd oo soo gatay haddana sidaas ay tahay markii labadoodu ay dhaawacmeen labada ciyaartooy ee markaasi dhaxda ka dheelayay oo ayagu bedeli lahaba ayaguna sidoo kale waa ay dhaawacmeen afar tibo ayaa sidoo ku maqan laakiin William Saliba ayaa dib ugu soo laabtay Gabriel Magalhaes iyo Kai Havertzna macalinka waxa uu sheegay inay markaasi dhowdahay ay aad iyo aad u soo dhow yihiin intaan la gaarin dhamaadka bishan ee sanadkan dhamaadkiisa intaan la gaarin markaasi inay dib ugu soo laaban doonaan garoomada ee kulamada ay markaasi Arsenal ciyaari doonto haddaba saaxiibayaal sidoo kale waxaanu markaasi si faaqidi doonaa kooxda maxaa laga leeyahay kooxda Liverpool ayaduna badan kartaa ayaa isleeyahay sababtoo ah waa inay u dagaalantaa Liverpool top 4 sababtoo waxay ku jirtaa top 10 ay markaasi hogaaminaysa qaybta ugu hooseysa ee top 10 ay ku jirtaa sababtoo ah waa numberka 10aad ee fadhida kooxda waliba waxa ka koreyso Manchester United ayaduna wayahan ugu dambeeya waxay u muuqataa mid hore u soo kacaysa
markaasi doonaysa inay horyaalkaba ku guuleysato oo hami kaga jiro. laakiin saadaalin loo sameeyay ayaa waxay sheegayaan in Manchester United sanadkan ee top 3 ay soo gali doonto. Manchester United ayaa waxaa la filayaa in top 3 sanadkan ay soo gasho sababtoo ah kooxaha markaasi la tartamayo oo ay ka mid yihiin Tottenham iyo waliba maxalla kooxda Liverpool aad bay dabkooda u dansan yihiin. Chelsea ayaduna sidoo kale waxa laga yaabaa in top 4 ay soo gasho sanadkan. haddaba Real Madrid aanu kusoo gabagabayno qodobkeena ugu dambeeyay Real Madrid saaxiib hadii adiga aan ugu cusub tahay follow noo dheh page-ka si share garay oo like iyo comment-ga ka ilaabin. haddii aad horena la joogtana fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad like iyo comment-ga noogu dadaasho siina share garaysid si asxaab fara badan ay u gaaraan muuqaalkeena. mahadsanidin. aynu markaasi ku bilaabay qodobkeena xiga ee kooxda Real Madrid ayaa markaasi isdhigatay oo markaasi kulamada qaarkood ay dhayalsatay oo leeyahay kooxa ay markaasi ka badi karto Real inay markaasi ayaga dibka loo shidayba maqaayadooda dibka laga shatay oo laga badiyay sida Kateefo kaleento sidoo naadiyada aad u yar oo ay Real awood u lahayd inay disho garaacdo ayaa 4 ilaa 5 kulan oo xigo oo xiriir ah ayaa laga badinayay Braga iyo badis loo iskugu daray ugu yaraan 3 kulan ayaa laga badiyay sidaas ay markaasi Barcelona horyaalka ku hogaaminaysa. haddaba caaba ay Real ay dheelaysaa ma laga yaabaa foomkeeda inay dib u soo ceshato in line-up-keeda tooska ahaa ay DLC macallin Xavi Alonso haddii ay caawa qarrac gasho dee waxa iska cad meeshaasi in Xavi Alonso borsadiisa banaanka loo dhigi doono. ninka Perez la dhahayna wax waji ah oo leeyahay ma jirto. ciyaaryahanka waa legend ma yaqaano waxa uu markaasi ku dhaqan yahay ciyaaryahan Roman Abramovich ki Chelsea lahaa jiray milkiilaha ahaa. Abramovich waa taqaanaa Roman Abramovich waa taqaanaan oo waa nin waji ilahayn oo ciyaaryahan Lampard oo ay saaxiibo lilaahi ahaayeen oo waliba kooxda legend ka ahaa. tababar markuu noqday 3 kulan loo qabtay hadii markii xaalku ku xumaatay 3 kulan kadibna boorsada baraaka qaada ayaa la dhahay oo waa laga eriyay kooxda Chelsea. ninkan Perez waxa uu la mid yahay ninkaas oo isku dabeecad ay kaga yihiin dhankaas iyo waliba xagga kooxda lagama soo maro hadii uu aragyo kooxda inay hoos u socoto tababaraha ayaa waxa la leeyahay boorsada qaado sababtoo ah xaaladdu waxa bedeli kara waa tababaraha. saaxiibayaal aad baad u mahadsantihiin qodobkaasi wuxuu ahaa keenii ugu dambeeyay barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha maanta. fadlan like iyo comment-ga naga ilaabin hala share gareeyo oo page-ka hala gaarsiiyo 10,000 ee ugu horeysa. aad baad mahadsantihiin asxaabteyda. gaalka aan lacagta ka qaadanay waa bal xaysiintu way saaran tahay waad aragtaan. fadlan idinkana igu dadaala inaa muuqaaladeedu meel dheer aad gaarsiisaan si aan u helo daawasho fara badan oo xagga viewerska ayaa aad iga liito. aadan kaga mahad celinaya asxaabteyda qaaliga waa mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.